ورخذها dadka maxaa loogu cabsanaa ilaahay ka cabsada lacagaa intaas aa cuni jirteen intaas mataqaanaa aa cunayseen anakana waxa aa naga siibayseen ilaahay maa ka cabsatiin maxaa dadka wija ugu yeelanaysiin laakiin ana hadda ii baahan tihiin waa kana intaad joogaa adreskeyga idin sheegi karaa ama tiktok iga soo raadiya ama whatsapp ama nambarkeyga hadday noqoto meel walbo aa iga soo raadisin diyaar idin ah qisada ku dhacday Canadian boy waxay tahay wiilka yar Canadian boy asoo yar oo caruura oo dhowr sano jira 5 sano miya ka yaraa waxay deganayeen wadanka Canada hooyadii buu la noolaa hooyadii markaa waxaa wadanka la deganaa walaalaheed ayada walaalaheed markaa maamadii kale way isku buuqday kale way xanuunsatay maamadii jin iyo waxba galay oo malanaya maamadii iyo inankeedii yaraaba waxaa laga tarxiilay wadankii Canada waxaa la geeyay Soomaaliya gobol kamid ah Soomaaliya waa long time ago hadda maaha wiilka yar uu soo silcay uu soo balanbalay hooyadiina dabcan hooyo xanuunsan bay ahayd waxa dhacday wiilkii yara wuu weynaaday wuu koray muddo kadib baraha bulshadu soo yimi baraha bulshadu yimi wiil fariido ahaa geesiya ma sha Allah Canadian boy inta taqaanaa TikTok giisa Canadian boy ba ku qoran wiilkii yara baraha bulshadu yimi caawimaad badalbad in la caawiyo in Canada ku dhashay aabihii Canada joogo hooyadii xanuunsanayso xoogaa xagga maskaxda isku buuqday jin iyo wax galeen marka wiilkii yara waa la caawiyay nin ayaa caawiyay baraha bulshada caanka ah asna TikTok ku jira oo ما شاء الله إلهي خير هسيو نكاس عاوية كبعد يقول كيرا كندو تجي هو يدي وحي ودعوة وحي فامل كيها كسي شوغان هو يدي نويتم عيال الرأس خير يرا مركع ملا طبعا حاجة سيكون الشيء أفريقيا كل الشيء مستر ولا لا ترحيل ما قرني لكن عرو يرير وكلوا ولا هي هو يدي بوالو حلقو سعودي كندا دبوا حكتشرا أنت مركي كندا اللي قتر حيله حل قال كندا اللي قتر حيله هيك لقوا عليه صوماليا لقوا عليه شرعي جودي لما كان سالين إن النقدين إن مقنيهين العقبة بلقوا قادني عرب بلقوا قادني العق باسبورك ويل كيرا فامل كيس ودو تشيدان كندي كدغان طبعا سفارتها عاويه iyo wiil raha abdajaan ayaa caawiyay oo Canada ku soo celiyay labadoodaba laakiin dib uu ka taagan yahay markay codsadeen lacagta ID iyo family support wixii lagu caawin lahaa waxa lagu yiri dalka waaba joogteen kamaydan maqnayn soodika lacagta qaatay soodika ID ku qaadanayay soodikan baasabooradiina ku baxay ku soo noqonayay dabcan waxa shirkada ka dambeysay habaryarta wiilka yar Canadian boy hooyadii walaasheed laakiin Soomaaliyeey shuruuci garab maraan wax kasto qaldan yaga sameeyo Soomaaliya markii arrinkaas u dhacay ay codsadeen lacagta cayda loo diiday hadda Canadian boy iyo hooyadii dacwadda lagu soo oogay haddayna runta sheegin oo sheegin wax kasto dhacay ayna oran habartii bana tarxiishay lacagta yaga qaadanayay iminka maamadii Canadian boy dhashay ayadoo xanuunsan bay haddana waxay leedahay ilaahay dartii baan ku daynana walaalahay waxba dacweyn maayo Canadian boy hooyadii wuxuu ku leeyahay hooyoy xabs baa leena gelinaya lacagta anagu meena qaadan jirin waa leena tarxiilay wadanka baa leena anoo yar leegu celiyay adigana waad xanuunsanaysi hooyo xaqiiqada aan sheegno runta aan sheegno in familkaaga saa inoo galeen hooyaduna waxay leedahay maya hooyadu dabcan hooyo xanuunsan wax badan ma fahansana de hadda waxa la cabsi qabaaba in xabsiga la dhigo Canadian boy iyo hooyadii la dacweeyo aan lacagna la siin waxna la caawin sababtoo ah haddaysan runta sheegin ayaga dib halka uga imanaya hadda wuxuu ku qasbayn aniga aqligayga in wax kasta oo dhacay sheegaan siday qisada ku dhacday ay sheegaan maadaama sharcigoodu lacag lagu qaadanayay bal haddaba dhagaysta Canadian boy oo hadlayo afkiisa ku hadlaya oo waliba yiri gaangis baa la ii dalbaday oo codad badan soo shiday oo habaryarihii familkiisa ah ilaahayna xaalka ha asturo ilaahayna iyagana ha asturo familkan Allah kala qaboojiyo waxaan leeyahay walaalaha qaar baa cadow isku noqda walaalaha qaar baa wallahi waxa kaaga fiican dadka shisheeyaha kaaga fiican marmarka qaar hadda wiilka xitaa gaangis baa loo dalbaday si uu kiiskaasi u damo oo loo aamusiyo xitaa gaangis baa loo dalbaday bal dhageysta hadhow inta kiiskaas adeen ugu furan محمد أنا نيجي معلنه يا باي ديار ويا إنه أنت هذه كلمة ولا قال ولا مدو ولا بوليس والله يا باي
معناها waxay tiri ani maxamed niigama celino معناها naagta aadna eeda aa leh micnaha adaa kugu tishmeynuna adaa kugu dhaafuna mooye ma dhaafi lahayn eedana waxay dhahay ninkaas dhimasho diyaar u yahay waa dhigeystaan umaleeha inaa wax idin sii fasiraa jeclahay eedoo af soomaali lagu sii hadlayo يا waxaan ku dhaha asaga meesha walaal kuma joogo ehel kuma joogo lakum diinukum walidiin aabuna afkiisa saa ka dhahay fidnada aabuna bilaa aabuna aad aan halayso aadin cunugtaana anigaa ma xigsan oo ilaaha leh naftiisan ilaaha leh waa yacni waa micnaha trade oo mataqaana habeesan waay nina cabsi gelin waay oo farsameysan xoogaa habeesan hooyadii la isku dayaa in xoogaa cabsi ay geliyaan hooyadii ay isku dayayiin in micnaha cabsi ay isfiican u dhegeysta markaan walaal malihi weligee ma murmin ani lagu haayo oo la dilo iimaanka ku qabin salaadeeda ku tukan lahay hata cunugeyga ma alxaqu linafsi daa'iqatul mawt hala dilo markoo dhinto hadalkiina iga yaraanaya maxaa ku dhahay ilmo malihi lambarka hata waa u jeedaan lambarka hata oo gardaradii أنا فيري وأمسكرا لكن أنا صراحة ممكن تكون أقول بالآدم هذا قلب في كلا ما تكون قريب وحقيقة مركي إنا حتى أنا لو مش يقارني سيقات سلاكين سأقوتاني dhibka maarin wiili waa u jeediin caasa soo waca hooyadii waay فلاقينا بتقولوا يا لكن هدي كيس أنا قفران أكون هاي كيس هتاني قفران نو أنت كيس كاس هتاني قفران يا محمد أنا اللي جمع لنا يا باي ديار هو يعني أنت هذه كلمة ولا قال ولا مدو المملي كساكدهاي فيننا أبونا بلا أبونا آد أنا هليتو آدم cunugtaana anigaa ma xigsan oo ilaaha leh naftiisan ilaaha leh maxaa ku dhahay walaal malihi weligee ma murmin ani lagu haayo oo la dilo iimaanka ku qabin salaadeeda ku tukan lahay hata cunugeyga ma alxaqu linafsi daa'iqatul mawt hala dilo markoo dhinto hadalkiina iga yaraanaya maxaa ku dhahay ilmo malihi reer waxay ka maraya wixii la dilaa hala dila ee dhahda laakiin ammaan isiiya number aan leeyahay adress aan leeyahay lesliyaa deganahay hooyadii kale waxaa usoo wicisiin ugu sheegaysiin ani micnaha in oo waxa ay gaarsiin kartiin booliskana hadda u socdo waa u socdaa booliska waa u socdaa hadda telefoonka ruufyaano maalweyn hadda in laga bedelo waayo telefoon kale u galo iskaan maskaxdii ka qabsan waan hooyadii ama blogna mise number kale soo wici karaan laakiin waa laga bedelaa insha allah You need anything? Okay. Thank you so much. Okay. in laga bedelo waayo numberka warqadaha dadka maxaa loogu cabsanaya ilaahay ka cabsada lacagaa intaas aa cuni jirteen intaas mataqaanaa aa cunayseen anakana waxa aa naga sii weyseen ilaahay maa ka cabsatiin maxaa dadka uja ugu yeelanaysiin laakiin ana hadda ii baahan tihiin waa kana intaad joogaa adresskayga idin sheegi karaa ama tiktok iga soo raadiya ama whatsapp ama numberkayga hadday noqoto meel walbo aa iga soo raadisin diyaar aa idin ah laakiin hooyadii iska dhaaf waxay ogtaa ma lahan maxaa kala hadlay waxaan dhacooya dhan waxay ka ogtaa ma lahan waxay ka ogtaa waxaan dhacooya ma lahan Housekeeping.
laakiin ani markay noqoto aniga si toos iisoo abaara kuwa gaangistarada oo soomaalida oo mataqaana meelahan degan inta warniyow hadday noqoto gaangistar hadday noqoto soomaali hadday noqoto waa kuwa meel walba joogaa ka hadla dadkayga iskoolada u dhiibay si fiican ii dhegeysta maxaa iskaaga dhigay gaangistarada soomaaliya inaad leedahay maxaa sababta iskaaga dhigaa rabaa taas inaa ogaado